imaaraadka carabta ayaa u muuqda in dhoolatus cajiib ah uu ka sameynaya Soomaaliya 20 maalmood gudahood. markii saddexaad ayuu safiirkooda la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa oo villa Soomaaliya ku yaala waxa uu ku qaabilay danjiraha dowladda imaaraadka carabta u fadhiya Soomaaliya, isla markaana waxay ka wada hadleen arrimo muhiim ah. kulanka xasan sheekh maxamuud iyo ambassador maxamed axmed cusmaan alxamaad ayaa shaki badan abuuray marka loo eego inta jeer ay kulmeen inta xilka loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaa labada dhinac la sheegay inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii dowladda imaaraadka ay u bilaabi lahayd taageerada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay siiso. war ka soo baxay safaaradda imaaraadka carabta ee muqdisho ayaa lagu sheegay in kulanka si weyn diiradda loogu saaray sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dal iyo horumarinta waxyaabaha isaga sidkan labada dhinac. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa dowladda imaaraadka carabta uga mahadceliyey taageerada ay siinayso, isaga oo sheegay in loo baahan yahay wada shaqayn xooggan oo dhinacyadan dhex marta. kulankan ayaa noqonaya kii saddexaad ee muddo ka yar 3 toddobaad uu safiirka imaaraadka la yeesho madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay 15 bishii May ee 2022. dowladda imaaraadka carabta 5 sano ee lasoo dhaafay wax xiriira lamaysan lahayn dowladdii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidaa daraaddeed iminka waxay u muuqataa in ay fursad weyn u haysato xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo imaaraadka oo xasan sheekh maxamuud ay u soo marayaan. dhinaca kale marka la eego safiirada imaaraadka iyo qatar ayaa shalay iyo maanta iyo toddobaadyadii aynu ka soo gudubnayba waxay xoojiyeen kulamada ay la yeelanayaan guddoonka baarlamaanka labadiisa aqal. shalay oo kale waxaa la kulmay safiirada midkood, maantana mid kale ayaa la kulmay, waxaana muuqanaysa in ay sii xoojinayaan loolankooda Soomaaliya. imaaraadka ayay ka go'an tahay in taageero xooggan uu u fidiyo dowladda federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro midmadowgii soo kala dhex galay Farmaajo iyo imaaraadka 5 sano aynu ka soo gudubnay.